كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ولا ليال وحن كسو قد جرني دروستين وحوي 30 قصة باللسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق قصة وكسبنا هذا عرب النبي عليه الصلاة والسلام. waxaa sugu keen dambeysay xalqadeena walaalayaal 12 insha Allah maanta waxaan qaadanayna xalqadeena 12 xalqadeena 12 waxa ku saabsan tahay adiyatul mu'mini qaribatul faraj waxa way qofka mu'minka ah oo la dhibaa waxay calaamad u tahay in waxa way ay soo dhowdahay gargaarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gargaari lahaa qisadeena walaalayaal waxaan ku qaadanayna xadiidka waxa way Abu Hurayra uu warinayo nabiga alayhi salatu wasalaam uu ka warinayo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحولي رسولك إلهي وحول كانت بنو إسرائيل غير بنو إسرائيل وحيها يغتسلون عراة كوا وحوي قبيست أم ميدا يقو وحوي قاون ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وبركود بركة كلاي وحوي عورضو إيغيان وكان موسى عليه السلام نبي موسى نوحوها يغتسل وحده متكلي وحوي قبيسته وحوي حشود وحوي وكل هياي فقالوا وحي راهدين markii waxa weeye uu ka dhaxbaxay nabi Muuse alayhi salaam ay meeshii ay ku meeranayeen iyo wixii ay sameeyeen ay ka arki waayeen faqaaluu waxay dhan wallahi ilaahay baan ku dhaaranaynaa ma yamnacu Muuse nabi Muuse u diidi maayo an yaghtasila macana in la maydho illa annahu aadarun waxa weeye uu sheelo ayaa waxa weeye uu leeyahay qaala waxa uu yiri فذهب مرة يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وحول مر وقتيدا كمدا أي وحوي نبي موسى وتجي سي وحوي وسوق بيسته فوضع ثوبه على حجر وحو صاري وحوي ماركتي مرديسي دغح ايو صاري ففر الحجر بثوبه دغخي ايا كلا عرري وحوي مردي او صارتي نبي موسى عليه السلام markuu dharka saartay قال وحوي نبي فجمع وياي او واقيلين موسى فجمع وقاضي له موسى بأثره دغخي رادكيس ayaa waxa weeye uu qaaday yaqool isagoo leh thawbi hajaru war dhagaxo maradayda idhig isagoo u dhawaaqay waxa weeye dhagaxi hatta nadarat banu israa'iila ilaa iyo reer banu israa'iil ula galay oo waxa weeye ay eegeen إلى سوءة موسى عليه السلام نبي موسى عوردي سي أركان فقالوا وحيدا والله إلهي بان كدارنا ما بموسى من بأس نبي موسى وحد بمقبه فقام الحجر رجح هو استاجي انت كذب بعد حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه وحوي نبي موسى عليه السلام رجحي أيو كقاتي وحوي مردي سمركو استاجي فضفق بالحجر ضربا وحانو قراعي دغخي نبي موسى عليه السلام قال أبو هريرة وحاول والله إن بالحجر ندب أي أثر وحوي أن أبو هريرة وحاول دغخي وحكم موقضي وحوي ماركتي قراعيستي راد كيدي ونبي موسى قراعي 6 أو 7 وشكل راوي وحوي اللح ماركتي النبر أما 7 نبر وضرب موسى عليه السلام بالحجر oo waxa weeye uu ku dhuftay nabi Muuse dhagaxa alayhi salaam walaalayaal waxaanu ka qaadanayna waxa weeye qisadan arinta koobaad aynu ka qaadanayna waxa weeye israaru bani israa'iil ala al-maasi balagha kull muntaha hatta annahum yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd maaragtay reer bani israa'iil halka xumaanta iyo macaasida waxa weeye ay ka gaadheen inay halkii u dambeysay waxa weeye ay ahayd حتى وحوي أي لقادين وحوي مال سجود يمادان سجود قاويان وعورض أجان ومال كوضا ميدان أرنت ولا لي الله بعد إنه قادرنا وحوي ضاعت موسى عليه السلام لربي نبي موسى عليه السلام سيد إلهي ماركته هو الداعي وحيائه وحوي ماركته حشوت كي نبي موسى عليه السلام فقد كان يغتسل لوحدي وحو حمد كلي قبيسته أرنت سيد حدا ولا لي إنه كفاية سرنا وحوي الظن السيء ضبع القلوب المريضة وحوي مالها حن وقفك وحوي مسلم كأمر كاست ملحن وحوي
qalbigiisa laga malaysto oo waxa weeye maaragtay xumaan lagu tuhmaa waxay calaamad u tahay qofkaas inuu qalbigiisu waxa weeye jiran yahay waxa weeye xumaha malaysanay kama qaaluu sida ay yiraahdeen reer banu Israa'iil wallahi ilaahay baan ku dhaaranaynaa ma yamnacu Muusa nabi Muusa uma diiday yaqtasila macana inuu inala qubaysto waynu halkan isku daawano illa annahu adarun wa waxa weeye sheelale oo maaragtay ceeb ay xiniyaha kaga sugantay waqad qiila waxa lagu yiri khayril bariyati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad mithlu dhalika arinta arin waxa weeye u dhiganta فعن ابن مسعود حديثك waxa weeye ibn Mas'ud uu warinayo nabiga alayhi salatu wasalaam uu ka warinay radiyallahu anhu qaala waxa uu yiri ابن مسعود waxa uu yiri qasama rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay ayaa qaybiyay qismatan waxa weeye qayb ayuu qaybiyay faqala rajul nimba yiri oo min al-ansari ansarta kamida wallahi ilaahay baan ku dhaaranayaa ma araada muhammadun bihada nabi muhammad arintan iyo qaybintan wax qaybinayo ilaahay dartii u lama jeedo فآتيت وأنويم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بانويمي فأخبرته وأغور رمي فتمعر وجهه النبي عليه الصلاة والسلام وجهي سأيا اسبدلي وقال النبي وحول رحم الله موسى نبي موسى الله حريسته لقد أوذي بأكثر من هذا وحوي انت الله يدبي كبضا بالله يدبي فصبر النبي موسى عليه السلام وحوي وكو صبري marka qofka muuminka waxa laga rabaa dib kasto waxa weeye qabsada inuu waxa weeye ku sabro arinta afraad inuu ka qaadanana waxa weeye khuduratu tamadi fil maasi waxa weeye dibka ay leedahay macaasidu marka waxa weeye dadkeedu si indhalaan ay waxa weeye u galayaan hatta yadunnu saahibuha annahu ala alhaq ila iyo qofku waxa weeye uu sumaleeyo sidoo macaasida u sameeyay inuu xaq ku sugan yahay oo maxaa yeelay reer banu Israa'iil waxa weeye xumaantii ay sameeyeen baabay wanaag u arkeen waxa weeye ceebna waxay u arkeen waxa weeye nabi Muuse alayhi salatu wasalaam xishoodkiisi marka qofku waxa weeye dumca sida joogtaysto halkaas oo kale ay waxa weeye la gaaraysa ilaahina subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay afaman zuyyina lahu su'a amalihi bal midka waxa weeye loo wanaajiyo amalkiisa kii xuma faraahu hasanan oo umaleynay waxa weeye wax wanaagsan inuu sameeyay fa inna allaha yudhillu man yasha ilaahi cidu doona ayuu lumiya wayahdi man yasha cidu doona ayuu hanuuniya فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نبي محمد إلهي وحا كلي نفتاده waxa weeye hadib gelinin oo waxa weeye xasrada iyo murugada waxa weeye xumaanta ay sameynayaan ku dhibin inna allaha alimun bima yasnaun ilaahi waa ogay waxa weeye waxa ay sameynayaan arinta walaalayaal shanaad ee waxa weeyaan ka faa'iideysanayna qisadan iyo waxa weeye xadiiska waxa weeye قدرة الله سبحانه وتعالى إلهي أوديس على فرار الحجر وحوي دغحاسي أود إلهي بنا تسين يا عرري وحوي سيدي بشر كو عرري وولي بقاتي وحوي النبي موسى عليه السلام دركيسي وحوي ومعجزة وحويان كنتي إلهينا سبحانه وتعالى والله وحوي قادر وشيك استأود أرنت اللي حادث كقادنا وحوي أمر المؤمن الصابر قفك مؤمن كأهي وحوي الصبرية وإن كان ظاهره شر فإن الله يجعل الخير من بواطنه أن قفك مؤمنك أرن أيا وحوي كو إيمان كرتا سو وحوي وموديو إني تاي شر إني أوتاي لكن مرك حاجة كلا لجا دنك كلا لجا يابا وحوي ماركت إني خير أوتاي وناك أن محايا لي نبي موسى عليه السلام أرن توادي بسني لكن أرن إلهي سبحانه وتعالى وكبري لي أيا وحوي يا حيد أرن تولا ليال تضبعات يعني كفاية سننا وحوي كشف العورات باللسان أعظم من العين وحوي عربك أو قفك مسلمك عورديس وحوي اللقو فايدة وحي كدرانتاي وحوي إشة أو وحوي اللقو فايدة ولذا آثر الله كشف عورة موسى بالعين وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحا ماركت أوضاني نبي موسى إنه وحوي إشة كفايدة وحوي عورديسي وحويان سيئي وأركان بمعنى حتى تستر عورته باللسان إلى أي وحوي ماركت رير بنو إسرائيل هذا كان حناي هذا الهيان النبي جاي كوع بيسانيان وحوي كوان توبيان أركان وحد بيان كسجنين أنت عين إن شاء الله ولا ليال كسو جبيننا وحويان ماركت إن شاء الله درسجنا وحوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم